daanyeerkan yar ayaa neefsaday hawo qabow. Isagoo aan hore u arag wuxuu u maleeyay in afkiisa uu dab ka baxayo. Argagax dartiis wuxuu arkay webi yar oo u dhow, si degdeg ah ayuu ugu orday si uu biyaha isugu tuuro oo dabka isaga demiyo, laakiin nasiib darro wuxuu ku dhacay baraf adag, si xun ayuu ugu dhacay. Waxaa intaas u dheerayd afkiisii wuxuu ku dhegay barafka. Awood badan ayuu isaga furay, laakiin weli qiiqii cad ayaa afkiisa ka soo baxayay. Waa inuu si degdeg ah wax u helaa si uu dabka u demiyo. Wuxuu si lama filaan ah u arkay dhagax barafka saaran. Si degdeg ah ayuu u qaatay hoos ayuuna si xoog leh ugu tuuray, wuuna ku guulaystay inuu barafkii jebiyo. Dabadeed si degdeg ah ayuu ugu booday si uu dabka u demiyo. Nasiib darro biyaha webiga aad ayay u qaboobaayeen. Markii uu ka soo baxay wuxuu isla markiiba isku beddelay taal baraf ah. Haddana ma dhaqaaqi karin. Nasiib wanaag qoraxda cirka ka muuqatay aad ayay u kululayd, taasoo keentay in heerkulka daanyeerka yar uu si tartiib ah u kaco. Wakhtigu markuu socday barafkii jidhkiisa saarnaa wuu yaraaday, laakiin hadda isaga oo keliya ma dhalaalayn ee sidoo kale barafkii iyo webiyadii ku hareeraysnaa way kululaanayeen. Wuxuu ka baqay in la qaado. Nasiib wanaag wuxuu ku guulaystay inuu iska furo barafkii wakhti ku habboon. Markuu arkay inuusan qiiq dambe afkiisa ka soo baxayn, si degdeg ah ayuu